asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kulan wacan oo wanaagsan meel walbaad kala joogtaan. halkan waa Jamaica Official. haddaad ku cusub tahay subscribe dheh, like dheh, share dheh, saaxiibadaada la sii wadaag. bartaan waa barta bulshada ay ku midowday, isla markaasna maalin walba waxaan soo gudbin doonaa layrkiska kalimaha suugaanta oo qoraal la saaray qaale kala duwan oo reaction aan ka bixino, isla markaasna sidoo kale waxaan soo gudbinaa muuqaalo oo cilmi aqoon u badan, isla markaasna aan isleenahay daawadayaashu waxay is gelin karayaan. haddaba daawade mar kale barteeda haddaad ku cusub tahay subscribe dheh, share dheh, saaxiibadaada la sii wadaag muuqaal walba oo maalin walba kusoo gaara maasanid. haddaba daawadayaal maanta waxaan soo gudbin doonaa muuqaal ka turjumaya maxaad ka taqaanaa taariikhda dalka Tanzania. haddaba daawade dalka Tanzania oo loo yaqaan Jamhuuriyadda Midowday ee Tanzania wuxuu ka mid yahay wadamada ku yaala bariga qaaradan Afrika. dalka Tanzania wuxuu xuduud dhuleed la leeyahay wadamada Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Zambia, Malawi iyo Mozambique, waxaana dhanka koonfureed ka saaran badweynta India. caasimada wadanka waxaa la yiraahdaa Dudumu. magaalada wadanka ugu weynse waa Dar es Salaam. calanka wadanka wuxuu ka kooban yahay midabka cagaar, jaalle ama hurdi, madow iyo buluug. tirada dadka Tanzania u dhashay waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 48 milyan oo dadka da-dooda ay 15 jir ka tahay. waxay bulshada wadankaasi ka yihiin boqolkiiba 44, sidoo kalena in ka badan boqolkiiba 70 dadka wadankaasi waa dad miyiga ku nool. lacagta wadanka laga isticmaalana waxaa la yiraahdaa Tanzania shilling. dalka madax banaanidiisa wuxuu qaatay 9 bishii December sanadkii 1961. wuxuu la midoobay dalkii Zanzibar la oran jiray 10 December sanadkii 1963. luqadda rasmiga ah ee dalka looga hadlana waa Kiswahili, luqadda labaadna waa luqadda Ingiriiska. dalka Tanzania oo kamid ah wadamada Afrika ee harooyinka waaweyn, waxaa sidoo kale ku taala buurta Kilimanjaro oo ah buurta Afrika ugu dheer. gaadiidkuna waxay isku dhaafaan marka wadanka la joogo dhanka bidix, waxaana ula jeedaa wadida baabuurta steerinka wuxuu ku yaalaa dhanka bidix. markii ugu horeysay dalka waxaa qabsaday Jarmalkii hore qarnigii 19aad oo dalka Ingiriiska ku wareejiyay intuu socday dagaalkii labaad. taariikhyahanadu waxay sheegayaan in magaca Tanzania uu ka yimid markii midoobeen labadii dal ee la kala oran jiray Tanganyika iyo Zanzibar. dhaqaale ahaan waxaa lagu tilmaamaa dalkan inuu ka mid yahay wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay dunida oo dhan, wuxuuna ka yahay wadanka 23aad. meelaha ugu badan ee dowladdu dhaqaalaha ka soo galana waxaa ka mid ah dalxiiska, waxaana celcelis ahaan sanadkii dalxiis u taga dalkaas in ka badan 1 milyan oo qof. dhanka isgaarsiinta haddii aanu eegnana daawadayaal, dalkan waxaa ku taala in ka badan 50 shirkadood oo dhanka isgaarsiinta. boqolkiiba 12 dadka wadankaas u dhashayna waxay si joogto ah u adeegsadaan aaladda internetka. dhaqan ahaan dadka Tanzania waxa ay la mid yihiin dadka dega bariga Afrika, waxaana qowmiyadda ugu badan dalkaas la yiraahdaa Hadza oo u dhaqan eg Masaayda Kenya degta. dad asal ahaan ka soo jeeda wadamada Carabta, Pakistan, India, Shiinaha iyo meelo Yurub ka mid ah ayaa dalkan ku nool, kuwaas oo dalkaas loogu yaqaan Shiraasiyiin. kumanaan ruux oo Carab ah ayaa lagu dilay dalka Tanzania intii uu socday kacdoonkii Zanzibar 1964 ilaa 1994. dadka jirkoodu casaanka yahay ee albiniyaska la yiraahdo ayaa aad loogu dhibaateeyaa wadanka oo marka la arko lama daayo ilaa nafta laga qaado. xagga diimaha muslimiinta ayaa dadka ugu badan ee dalkan, waxayna bulshada wadankaasi ka yihiin boqolkiiba 35. waxaana dalka ku yaala masjidka labaad ee Afrika ee ugu weyn, kaasi oo dhistay madaxweynihii la dilay ee Liibiya ee Muammar al-Gaddafi, waxaana markiiba ku tukan karaya 3,000 oo ruux. hay-adda caafimaadka adduunka WHO warbixin ay dhawaan soo saartay waxay ku sheegtay in dalkan dadka ku nool boqolkiiba 3 ay qabaan fayraska dhaliya HIV/AIDS, halka xanuunka malaariyadana ay gaarayaan boqolkiiba 5. cunada ugu badan ee dalka laga cuno waxaa la yiraahdaa ugali oo ah soor la adkeeyay. hilbaha xoolahana sida looda, ariga iyo dalagyada la beerto oo ay ka mid yihiin
digirta, masagada iyo galleyda, kalluunka iyo qudaarta ayaa aad loogu isticmaalaa. Kubadda cagta markaa dhankeedana aadanana daawadayaal waxaa aad loogu jecel yahay xulka qaranka dalkaas, waxaana la leeyahay dalka Tanzania kubadda cagta ayaa kamid ah ciyaaraha aadka loogu jecel yahay dalkaasi. xulka qaranka waddankaasna weligoodna kubadda adduun iyo kan Afrikaba intaba maysan qaadin. ciyaaraha kubadda koleyga, feerka, ordada iyo rugby-ga ayaana kamid ah ciyaaraha dalkaasi loogu jecel yahay. dalka Tanzania ayaana daawadayaal kamid ah wadamada aadka u horumaray isla markaasna nabadoodu aad u sareyso. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Mr. Barack Obama oo xilka ka degay ayaana hor u sheegay dalka Tanzania inuu kamid yahay wadamada horumaray isla markaasna iminka nabadoodu aad loo xiiseeyo. isagoona mar soo gaaray ayuuna sheegay inuu kamid yahay dalka Tanzania wadamada Afrika aadka ugu degan. Tanzania ayaana iminka ku talaabsanaysa nabad iyo bilic intaba, waxaana iminka la aaminsan yahay inuu yahay wadamada Afrika ee aadka u horumaray. dalka Tanzania hadda soo booqato ayaana aad ugu soo dhaweynayaa maadaama dadkiisu yihiin dad xadaaradoodu aad u sareyso isla markaasna dadka socotada ama safarkana aad ku jecel. sidoo kale dalka ayaanu ku horumaray meelaha dalxiiska isla markaasna aad arkaysaa xayawaanaad kala duwan oo indhahaaga soo qabanaya markaad joogto dalka Tanzania. dadka reer galbeedka ayaana aad u xiiseeya inay sanad walba soo gaaraan dalkaas maadaama ay ku jecel yihiin nabadgelyada iyo deganaanta, waxaana laga soo calaameeyaa inuu iminka yahay wadamada aadka u sii kordhaya marka la fiiriyo xagga bilicda, deganaanshaha iyo quruxdaba. wadamada Afrika ee uu dariska leeyahay oo dalkan oo iminka la leeyahay waa wadamada naftigoodaba marka la fiiriyo ku dayanaya dalka Tanzania ayaana kala ah dalka Uganda iyo Kenya iyo Burundi iyo Rwanda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Zambia iyo Malawi iyo Mozambique. dhammaanba wadamada iminkan soo tirna daawadayaal ayaana dhammaantood iminka ku dayanaya dalkan Tanzania maadaama ay sheegayaan xadaaradiisu inay aad u sareyso isla markaasna ay doonayaan inay isaga oo kale ay gaaraan. waagaag daawadayaal warbixintii koobneed aan ku eegeynay dalka Tanzania maanta halkaas ayaan ku ekeenaya. aad baan kaga mahadcelinayaa meel baa joogtaan sida wacan aad barnaamijka ula jaan qaadeen. bartaan mar kale daawada haddaad ku cusub tahay subscribe dheh, like dheh, share dheh, saaxiibada la sii wadaag. waa bar maalin walba kuu soo gudbinaysa wax walba oo taagan isla markaasna aan isleenahay daawadayaashu waxay si gelin karayaan. la siina wadaag muuqaal walba ku soo gaaro saaxiibada maadaama adiga aad tahay qofka ugu horeeya ee daawaday uguna sii faa'iideeyay saaxiibka kale ee barta isticmaalay isla markaasna aan Jamaica official aan ku xirneen. mar kale aad baan kaaga mahadcelinayaa. nabadgelyo.